السلام عليكم ومقال عصب وأين عنوان أقدقني قيمها وحبرشدا وحبرشدو ومد آد إيا آد أقيم بدن أو قف إيا قرنبا بدبادا قفكو مركا أو قيمة إيا قايا ليهي ومركا أو أقون ليهي قفكو مركا أو بلشدي سوح كدحيهي ومركا أو أقون ليهي قفكو مركا أو نفتي سهر مرينيا ومركا أو أقون ليهي قفكو مركا أو وحسو كردينيا ومركا أو أقون ليهي قفكو مركا أو فائدة إيا ديف ليهي ومركا أو أقون ليهي قرنكنا haddii uu kor u qaado qiimaha aqoonta oo uu taageero yar iyo weyn qorshe cad ay ka yeeshaan waa uu horumaraya oo inta aan isaga ahayn ee aan sidiisa u danayn aqoonta waxa uu u noqonayaa xidig ay kor u eegaan islaamka iyo aqoonta marka la eego diimaha adduunka soo maray intii ay taariikhdu jirtay diinta ugu badan ee ka hadashay aqoonta ama qiimaha ugu badan siisay aqoonta waa diinta islaamka waxa aynu ka arkaynaa in ay diinta islaamku tahay ta qiimaha ugu badan siisay aqoonta aayadii ugu horeysay ee soo degta ayaa waxa ay ku bilaabmaysaa akhriskuna waa furaha aqoonta inaga oo xalqad gaar ah ka samayn doona akhriska haddii Allah idmo taa macnaheedu waxa weeye diinta islaamka ah ee aynu haysano alle mahadi ereygeedii ugu horeeyay ee soo dega waxa uu ahaa erey ka hadlaya in aqoonta la barto si bulshadu indhow yeelato ma aha intaas oo kali ah ee haddii aad kala furto kitaabka quraanka ah ama kutubta laga qoray axaadiistii rasuulkeena Muhammad waxa aad ka helaysaa kumanaan daliil iyo tusaalayaal ah oo ka hadlaya aqoonta iyo qiimaheeda ilaahay waxa uu quraanka kariimka ah ku leeyahay aayad uu macnaheedu yahay miyaa ay siman yihiin kuwa aqoonta leh iyo kuwa aan aqoonta lahayn oo u dhacaysa masina sidoo kale waxa uu Allah leeyahay wuxuunba ilaahay ka cabsada kuwa culimada ah oo u dhacaysa alle ka cabsiga xaqa ah waxa uu rasuulkeena milgaha iyo maamuuska badan leeyahay laba shay baa la isku majirtaa qof Allah aqoon siiyay oo ummadiisa baraya oo u hagar baxaya iyo qof Ilaahay xoolo siiyay oo habeen iyo maalinba bixinaya waxa kali ah ee nabiga la amray in uu Allah weydiisto in uu u kordhiyo waxa uu ahaa aqoonta iyada oo Allah ku yiri Muhammadow waxa aad dhahdaa Ilaahayow aqoon ii kordhi marka aynu bulshooyinka eegno dawladda Japan ee aynu aragnay waxyaabaha aynu adeegsano in ay wax badan oo kamid ah iyadu soo saartay waa mid kamid ah dawladaha ugu horeeya marka la eego xagga danaynta aqoonta haddii aanay ahaynba tan ugu horeysa marka la eego dhanka tirada cilmi baarayaasha Japan waa wadanka haysta tirada ugu badan ee cilmi baarayaal diinta islaamku aqoonta waxa ay ka dhigtay mid lama dhaafaan ah waajib rag ha ahaadaan dadka wax baranaya ama haweene mid kasta oo inaga mid ahi ha yeesho qorshe uu aqoontiisa ku horumarinayo oo uu weligiina aqoonta ugu dhex jirayo oo aanu u daynayn si kasta oo ay aqoontiisu u sarreyso markaas ayaa bulshadeenu horumaraysa oo ka hinqanaysa halka ay taagan tahay siiba inteena dhalinyarada ahi waxa aynu nahay dadkii laga qabay rajada ah in berri ay samayn doonaan dal ka qurux badan kan hadda soo saari doonaan dad ka qurux badan kuwan hadda yaynaan isdhigan waa Sakariya Haruuni oo idinkaga tagaya inta aynu ku kulmi doono muuqaal kale oo xiiso badan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh